برساب حجينك قبل كتقدر محمد ديري حيدا يمركو جوهريسي تانية وقت لوصو مقعبي حلكاسي وحو بقشدي جوهريسي كتغي مقالة حقيقة ديغان تاريخي اسلامركاس كوسن تان halkan kii dib u xoreynta dalka برساب حجينك قبل كتقدر halkaasi weyn lagu soo dhaweeyay ayaa waxa uu dadweynaha deegaankaasi xaqay ka dhageystay cabashooyin ku taxalluqa sidii wax looga qaban lahaa adeegyada caafimaadka waxbarashada iyo biyaha gudoomiye meeshan ومجعيدا حقيقة ملاسي دوالة حقيقة لا بحي واقع ملاسي نوتا لما نسول السوقي أي مجعيدا كبحي حقيقة ملاسي وعينك ومجالات دعوين وإن بدأ سوي شرتي إلا إنجليزكي مجالات نوي سوي شرتي محمد حكمت أنا أعده بلادنت حقا مجاله واحد نوقف حقا ليش إن أنت لنا الشيخ حقنا واحد نوقف حقا ودويني حقنا دابيد الصوم مرة كلا أي مال نقولو محمد دين تعلق حقنا واقو محمد دين تعلق أي حكومتها وأوي ومجال عادو دوين أنت هالجنكي قبل ما دوكها مشروعات بي وصل قريب كشيء دجال بدن باكر دعاي فقشات بي أيه بربرسي براغه هودي مينا لجريي إن أنت أغلى ورق صوتش دونا مينا دي سيدي ugu jirta ay minadi ku ay ninkii dhaqaale yar helayna uu yar kabtay meeshii minadu ka kabtay kii kalena ee awood u waayna geestii minada laga geliyay ama labada geesooda minada laga geliyay sidii bay u duusanto waynu soo maraynaayo warku soo tusi doona 24 sanadood ee Soomaaliland jirtay wax ka tirsan Soomaaliland oo xil u haya gudoomiye maanta hada ugu horeeya aad iyo aad baan kugu mahadnaqaynaa imaanshahaada aad noogu timi أنا سؤال شيبتي أفريقيا لا تكاس سنوات هذيك وحنا يمد هذا وهرية أشيب كأنه تيمي الحالات ده كور هلا شيء أستري كبور كور حالات دوده عادي بان وكوهم بلياننا عادي بان ما سنتي تاريخنا وحويه ويقولون تبى دعوة كده جلس وكدورنا إلهي ما وحتاجره تاجره حق بياه يتاجر حق التعليم تاع الله أصبحوا ودري إن حق عافماتك كل أسبوع والله مد لكن هو بعيد كسر كويس والله برا الصوب أخذي بلا سبب كوجي كيبو محمد وأنا كوسول وين كما فرمت سبب توعوي أنت دولة سونايلا ولخف دولة كالصعبة وعلى الجواكو markan dan u soo iyo baahi u soo jeesto lambar 2 nolosha koobaad waxa weeyaan biyaha haba yeeshee maba hayno waa loog yahay wax gaari keeno mooyeena wax kaliba ka jiray kana soconayn biyaha lambar 2 waxa weeyaan waxbarashada iskuulkayga halka ku yaala aflax baa la yiraahdaa 40 arday baa dhigto 1 iyo 2 iyo 3 ba weyleen iyo 4 sabuurada halka ku taala 5 na weyleen sabuurada halka ku taala inanka 5 ka marayana saasoo daalacdayna kuulada heewanka marayana uu daalacda halka in loogu kordhiyo iskuulka oo aanay ardaydu kala sabuurad si ay noqotiyo kala dugsi sidii ay caalamka baahay galaasi kale loo kordhiyo waan doonayna taasina waa qaybta waxbarashada qaybta caafimaadka markaan soo bayro mulisana ku dhaho horta maba hayno 24 sanadood Soomaaliland jirto mulisana laguma tubricina waxaad moodaa isku xidhnaan inay ka jirtay intii hore imkaanigu waxaan joogay muddo 20 casha safarkii horeeyaan ku imaado tuulooyinka waa kow inta la xilkaayay tii koowaadaan tago waa qiimalaasle aad waxaan ugu faraxsanahay anigoo afkii xukuumadda ku hadlaya in cabashada noqdo kii koowaadaydi yimaada aad baan ugu mahadnaqayaa idinku mahadnaqaya inta aadaan ka gudbo anigu waqti markii hore burcaan joogay maayar baan ka ahaa golaha deegaanka horaan ku jiray qaybanaas war xasuusan jiro kale maraan biyo wax ka qaybinaya anigu guddi biyo qaybina ku jiray oo jiyaal xubin jiray marka magaalada sheegaa qaybanaas la geeyay jiray waxa كل ما ينزل إنه كعصار يلانو
waxaan doonaynaa inaanu isku xidhnaano guddidii magaaladii haydhbaankeedii waxaan doonaynaa socodkaygu inuu intaa ka badno baahida jirtana waanu ururinaynaa sidoo kale waxa uu barasaab ku-xigeenka gobolka Togdheer uu isla maanta uu booqasho ku tagay dhowr iyo 10 baraagadood oo ku yaala gudaha magaalada Haqayo kuwaas oo miinooyin ku rakibtay dawladdiisii Adbarre dhinaca kale barasaab ku-xigeenka Togdheer ayaa dhul banaan oo ballaaran ka gudoomay xeerka tuulada Haqayo dhulkaas oo loogu talagalay in laga dhiso MCH caafimaad iyo waliba dugsi ay wax ku dhigtaan ardayda deegaankaasi waa Maxamed Ibrahim Xasan Maxamed British Television caalamiga Royal Bro